لله يد وحان قبن إلهي درتي بانو قبن عدان جعلان إلهي درتي بانو جعلان عدان نعي إلهي درتي بانو نعي وحان بحن إلهي درتي بانو بحن وحا خيرا شيء إلهي درتي بانو شيء خير كان دقيسن إلهي درتي بانو دقيسن وإن نقطة قف دينية ودينتو أي حكمين يسو سج سؤاشا قبرك وكوكو دبيراتو ترادو أنيق الدين تيدو إسلام مركز النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالله هركاني أول أورندونا محادو تقاني شخصا مركز أمومك إليه هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام صدح دا سؤالات مؤمنكم مركو قبرك كجوابه أيا سمد الله قد واقع الله أورندونا أن صدق عبدي أدون كيجي رمبو شاقي أفرشوه من الجنة فراش جنة كسو قاضو أقوغلا والبسوه من الجنة در جنة كسو قاضو أحدا وافتحوا له بابا إلى الجنة البابنا جنة وغفر جنة هلك هكذا وذيب الأورانيا دول كانت كو عليسي ميتك دول كان كو آسني منها خلقناكم وفيها نعيدكم هل كانت كو آسني ودول كدحدي سويان إن كتاب الأبرار لفي عليين جنة وفوق 7 سماوات هل كان سوقفكم مؤمنكم جنة سيكدا ونيا سيدا إنكو بآلة دنيا رأيمك أنا سنة موبيل كإجابة أتكو حيثتد qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka buu ka arkayaa jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaas la oran doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhul maut wa ahlul jannati la yanaamun ba nabigu alayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada haday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yiri adduunyadan maalintiina waa foofi waa macaash kasbi xalaal ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bixiyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan ku sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wama hum minha bimukhrajin ba ilaahay yiri ahlul jannuhu jannada hadii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daalo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeen kuwa ka baxaya ma marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyada ku qabtaan waa la hor dhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه يقول شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا دان نلقى كالصبح دونان دان حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولا يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيي وان جيفني وان هردني هردد محان نقصو كعيي بولا يحي مركو أرقى خلقي وبنك قيامة سدا أسكو دح سعدنا وحولا يحي ما أنت ومالنتي النبي يدو أي نويا بوهين إلهي الرسول شيسنا الروم بين نوش يكتبوا لي ما أنت ومالنتي لنويا بوهي يوم القيامة ويان مركا نولشان أدويدو ومالني يهبين نولش قبرقو وهبين نولش قيامه هنا ومالن كليا نولش أدويدو وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلهي آية الليل آية النهار نولشان أدويدا أن كنا لهي ومالني يهبين مالنتينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسانيسا واد سيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم الدويدا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدي لقو ديغنا وهبين كليا
habeen kaasuu nebigu noo sheegu yidhi qabrigu waa laba mid weeyaan amaa waa rawda min riyaadi aljanna imaa xufratu min xufari الnaar mu'minkiina beerbeeraha jannada ka mida looga dhigayaa gaalkiina waxaa looga dhigayaa godgododka naarta ka mida looga dhigayaa ninna uu hurdaa oo 70 sane adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeennaa wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamulbarsakh bay ku jiraan inna way hurdaa way nasanaysaa oo waxaa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaane way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo unbay qabriga ka soo bixi doonaan laysa calaa ahli laa ilaaha ila allah وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها دتك أدونك دوشي لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكليوب مايان maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug geliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma aljamci yowma altagaabun yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin yowma altagaabun yowma altaama yowma asaakha habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaase qiyaamaha markuu ilaahay ka warramaayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin keliya wa fii yowmin kaana miqdaaruhu 50,000 sana yowmaidin tucraduun laa takhfaa minkum khaafiyah yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowma ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala yowmkaasina qur-aanka ilaahay noogu sheegay waa 50,000 sannadood ibnu cabbaas radia allaahu canhuma mufasirkii qur-aanka wuxuu ku fasiruu yidhi 40,000 sano waa la joogi 10,000 sanona xisaabtaa ku dhammaani doonta buu yidhi 40,000 sano ayaa sidaa loo taagnaan doonaa 10,000 sanona xisaabtaa ku dhammaan doonta nin acraabiyo reer baadiya ayaa sara kacoo yidhi yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu yidhi ilaahay baa xisaabi doona rabbigaa xisaabi doona markaa ninkii acraabiga intuu sii jeestay buu yidhi najownaa warabbi alkacba kacbada rabbigeyga ayaan ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabadgallay buu yidhi markaa buu nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabadgashay buu ka yidhi bal ii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi ma cid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim kariim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك مدى مجرو هدو جران أبو رسول كل أيهي ربي جيبوا قيامه الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالين عد وكل أفعلين يسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يعني حاجة مدقتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي قول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي قول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي قولي تمر جيح تمر إني كان هلين بو نبي يقول ياي هذا الكون أكسن هكو هذا كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن
walaalkaaga muslimkood khayrka aad u sheegtaa waa kelmad wanaagsan munkarkood ummadda ka reebtaana waa kelmad wanaagsan kalimatu tayyibatu sadaqa buu nebigu yidhi caaisha radiyallahu canha almu'miniin ayaa tidhi markuu nebigu yidhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurla bay tidhi yuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayakoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayakoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tidhi radia allaahu canha almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma ninbaa ma gabadhbaa ma naagba maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jira buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa assulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badan waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan waalqabru beytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mawqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati طariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan warabbii laa adrii maadaa yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo berritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nebigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuula allah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood markaa buu nebigu yidhi caaisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka intaad tukataan in laag baa banka qiyaama looga dhigi buu yidhi inteen tukanay salaadii maqrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyadan intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiradu eega dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiradu eega meeshuu marayo aakhiradu eegaya meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxii taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradeeda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadaayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaalo aakhiradeeda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku uu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysaa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta o dhan kaa joojinaya wanaag o dhanna kuu diraaya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan
إيمان إلهي الرمي آخرنا الرمي إلهي الرمي آخرنا الرمي والله بدأ النبي يدو ضدك يقول يدين نبي كستو أدوك الله كيني ومدى إلهي حقي سوء يدي آخرنا حقي يقول يدي وها إلهي كأقرر لنقولنا وإيماني عمل صالح وها آخرنا ذكوبة بعد السنة وإيماني عمل صالح maalmaha ka mid a ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mid a aqal yaroo cariishe markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malagii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بن آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا ديجيس قلبك سامين يا وحنا ديجيسنس قلبك سامين يا وحنا تكوهلس قلبك سامين يا وحنا تكفكريس قلبك سامين يا وأفرت قصبضات قلبك ابن آدم كسعتوين أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان وعاد يكتب قلبك قلع وعاد هذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبيا لبس شيء بعلماء ولادان لبس شيء قلبك دحل لك قبيا قرآنك آخر سكي سؤال الله بديو يا آخرته أنت بدل لا شك شك الله حسوس الله شكايو labadaa maanta may nagu yariin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina way nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid سوق المسلمين كمصلاهم بود علي بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو واسدا مساجد او كلويان سدا مساجد إله الله وينينا يو أيا زمن النبي سوقنا إله الله وينينا يي سدا مسجد كده حديث إله الله عاصيين أيا سوق وجينا إله الله عاصيين إنك أنا زمن كنا مانتا شيء كذي دبادة تالي أيا الله جاي أبا إن لك أنا مسجد كجوديهيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا يا مرقاب النبي يقول إلهي كوم السوء اللي يبو كيدي هذا أركتان بو النبي يقول إن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا يا وعتر هذا إلهي كوم السوء اللي يده هذا أركتانا نن مسجد كده حديث جناعسي هي تجارة كده سمينا ينا وعاتر هذا إلهي كوم بركة يده هذا إنما بنيت المساجد لما بنيت لها مساجد وحي لورد سيبا رسولك يري نولش مساجد تالا بي علماء ليهين أيا للربعين دبادة الله ساري نولش دبادة تالا مسجد كاين لك أنا ماها عهدك نبينا عليه الصلاة والسلام يا عهدك صحابة dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ay dibadda ula baxeen
halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhiraday ku weyneeyeen dibaddana aakhiraday ku weyneynayeen wallaahi siiraday ku taallaa cumar binu khadaab suuqa madiina intuu gala buu odhan jiray halkan ina fadhiisiya ilaahay saacadaha rumayna kaalaya cabdullaahi binu cumar intuu u yimaado tufayl buu ku odhan jiray ina mar iraac buu odhan jiray xaggeen tagnaa suuqaan tagaynaa suuqa iyo soo baxayeen haddana maalin kale uu yidhi ina mar iraac haddana maalin saddexaad buu yidhi iraac waa cabdullaahi binu cumar in cumar binu khadaab iyo tufayl oo taabici ahaa maalkaasuu markaa dhowr cisho markuu suuqii ku celceliyey uu ku celceliyey buu ka yidhi ya bna cumar suuqa waadna geysaa maalin walba badeecadna kama soo iibsatid badeecadna uma iibgeysid badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaana nama fadhiisisid war halkan ina fadhiisi buu halkan noogu sheekee buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd markaa ibnu cumar baa ku yidhi warka kaagan caloosha buuran li innamaa naqdu min ajli asalaam waxaan u kala haynaa waxa weeyaan dadka inaan salaanno baan u kala haynaa buu ka yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu baan u kala haynaa waa duco weeyaan ducadaa baan u kala haynaa muslimiintaan u ducaynaynaa iyaguna way noo ducaynayaan 100 qof baan u ducaynaynaa 100kaasi way noo jawaabayaan waa duco laga yaabaa 100ka awliye ilaahay intay ku dhex jirto in ilaahay ducadooda noo aqbalo